bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan wanaagsan dhammaanba dhegaystayaasha qiimiga ee qaayaha mudan ee hawada naga dhegaysanaya halkani waa codka soomaalida Finland SSM Verkosto oo goorahan oo kale aad uga barateen inaanu idinka soo gudbinno wararkii ku saabsanaa viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale. haddii aanu ku horeyno dalka Finland maalmahan xaaladda faafista viruska corona ee cirka isku sii shareeraysa ayaa maanta oo jimco ah bisha 8aadna ay 6 tahay sanadka 2021 waxaa hay-adda caafimaadka iyo nolol-wanaagga THL ay shaaca ka qaaday in viruska laga helay 738 qof oo hor leh dalka Finland, taasoo tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee Finland ka dhigaysa 117,720 qof. maalmahanba tirada dadka laga helay viruska corona ayaa si aad u sii kordhaysay iyadoo dhowrka maalmood la soo dhaafay uu u dhaxeeyay 600 ilaa 700 oo qof. tiro gaaraysa 107 magaalo oo ka tirsan dalkan Finland ayaa maanta viruska laga helay. meelaha ugu badanna waa gobolka Helsinki iyo Uusimaa oo caasimadda iyo hareeraheeda ah oo laga helay 372 qof, gobolka Varsina-Suomi oo laga helay 85 qof iyo gobolka Pohjois-Pohjanmaa oo laga helay 79 qof. magaalooyinka ugu badan ee laga helay viruskan waxay kala yihiin Helsinki 188, Vantaa 66, Espoo 750, Turku 44, Taivalkoski 40, Tampere 31, Jyväskylä 29, Oulu 17, Lahti 19, Porvoo 16, Rauma 15 qof. Rovaniemi waxaa laga helay 12 qof, magaalada Kaarina 11 qof, Joensuuna 10 qof. magaalooyinka kale ah Kajaani, Kerava, Kouvola iyo Uusikaupunki waxaa laga helay min 7 qof. sidoo kale Kirkkonummi, Tuusula, Akka waxaa laga helay min 6 qof. waxaa min 5 qof laga helay Lappeenranta, Salo, Lohja, Kuopio, Nurmijärvi iyo Torino iyo sidoo kale magaalada Raisio. min 4 qof waxaa laga helay Kotka, Vaasa, Riihimäki iyo magaalada Hiitunen. inta kale ee soo hartay magaalooyinkana qaarkood waxaa laga helay 3 qof halka qaarka kalena laga helay 2 qof ama 1 qof. xanuunka viruska corona awgiis waxaa isbitaalka ugu jira tiro gaaraysa 100 qof, iyadoo qaybta gargaarka degdegaana ay ku jiraan 18 qof, taasi oo ah tiro aad u badan marka loo eego toddobaadyadii lasoo dhaafay. hay-adda caafimaadka iyo nolol-wanaagga THL waxa ay sheegtay in tirada dhimashadu haatan ay marayso 987 qof kadib markii 1 qof oo horle maanta xanuunka uu dhintay. dhinaca noocyada cusub ee viruska corona oo aad u sii kordhaya ayaa tirada guud waxa haatan ay maraysaa sida THL ay sheegtay 11,588. 7,947 ka mida waa nooca loo yaqaano alfa, halka 1,444 uu yahay nooca loo yaqaano beta. nooca loo yaqaano delta oo ah kan aad u badan ee haatan faafaya ayaa tiradiisu waxa ay gaaraysaa 2,190 qof, halka 7 nooc uu ka yahay nooca la yiraahdo gamma ee dalkaasi Brazil asal ahaan uu kasoo jeedo. tirada tallaalka ayaa waxaa haatan tallaalka qaybta koowaad qaatay 3.7 milyan oo qof, taasoo u dhigmata 67% tirada dadka, halka tallaalka oo dhammaystiran ama labada qayboodba ay qaateen ku dhowaad 2.1 milyan, taasoo u dhigmata 38% tirada dalka Finland. wararka kale ee ku saabsan viruska corona kuwooda ugu doorka roonna waxaa ka mid ah in qaar ka mida degmooyinka dalka Finland ay laga bilaabo Isniinta soo socota oo bilaabi doonaan tallaalka caruurta caafimaadka qabta ee aan wax xanuuna lahayn ee da'doodu ay dhaxayso 12 ilaa 15 sano. qaybo ka mid ah degmooyinkaasi waxaa caruurta lagu tallaali doonaa goobaha guud ee xarumaha caafimaadka ee goboladaasi, halka qaar ka mid ah degmooyinkuna ay u diyaarinayaan in ardayda lagu tallaalo iskuulka dhexdiisa. sidoo kale qaar ka mid ah degmooyinka ayaa ku tala jira in gaariga wareega ee tallaalka wada lagu tallaalo caruurtaasi. waxaa haatan laga fakarayaa meelihii lagu kaydin lahaa tallaalka iyo qaabkii loo soo qaadi lahaa. haddii ay arrimahaasi hirgalaanna waxaa la doonayaa in sida ugu dhaqsaha badan dhammaan iskuullada dalkan laga hirgeliyo tallaalka. dowladda dalka Finland ayaa khamiistii shalay ahayd waxa ay go'aan ku gaartay in tallaalka lasii ballaariyo oo la gaarsiiyo caruurta da'doodu ay dhaxayso 12 ilaa 15 sano, iyadoo go'aankaasina uu dhaqan geli doono Isniinta soo socota ee bishan ay tahay 9. waaxda caafimaadka ee agagaarka gobolka Kymenlaakso ayaa xadeyntii ku saabsanayd umuuraha viruska corona ee looga hortagaya faafistiisa waxaa lasii adkeeyay arrinka ku saabsan isu imaatinka laga bilaabo 14 bisha 8. sidaasina waxaa sheegay maamulka gobolkaasi.
maamulka gobolkaasi waxa uu sheegay in isu imaatinka gudaha ah ee lagu qabanqaabinayo dhammaanba gobolkaasi Kumelax iyo agagaarkiisa wixii ka badan 10 qof oo gudaha isugu imanaya ay khasab tahay in dadka halkaasi isugu imanaya aanay isu soo dhawaan islamarkaana lagu dadaalo kala fogaanshaha oo ay isu jirsadaan ugu yaraan 2 mitir. sidoo kale waxaa xadiintan cusub ay dhigaysaa in wixii ka badan 50 qof ee dibadda isugu imanaya khasab ay noqonayso in la kala fogaado oo aanay jirkoodu istaaban, laakiin khasab aanay ahayn in ay 2 mitir isu jirsadaan. maamul goboleedka caasimadda iyo hareeraheeda ayaa waxa ay sheegeen in weli aan wax xadayn cusub ah go-aan laga gaari doonin, iyadoo haatan maamul goboleedka caasimadda iyo hareeraheeda ay ka codsadeen khubarada dhinaca caafimaadka in arintaasi ay ka baaraandegaan islamarkaana dowladdu ay go-aan ka gaari doonto toddobaadyada soo socda. warka ka imanaya isbitaalka jaamacadda ee magaalada Turku ayaa waxa uu shaaca ka qaadaya in xarunta dhexe ee isbitaalka jaamacadda ee magaaladaasi haatan la keenay dhowr dumar oo uur leh oo iyagu la ildaran xanuunka viruska corona. waaxda caafimaadka ee gobolkaasi Varsina Suwam ee caasimadeedu ay tahay magaalada Turku ayaa waxa uu kaloo intaa ku daray in nooca cusub ee viruska corona ee loo yaqaano Delta darteed haatan dhowr dumar oo uur leh ay isbitaalka u soo galeen waliba qaybta gargaarka degdega ah. haweeney ka mid ah dumarkaasi oo iyadu haatan dhashay ayaa iyada iyo ilmihii yaraa ee dhashay waxaa xaaladooda lagula socdaa isbitaalka caruurta ee magaalada Helsinki. ilmaha yar ee dhashay ayaa xaaladiisu ay wanaagsan tahay, dhibaato sidaasi u sii weynna ma uu qabo. waxaa la sheegay in dumarkaasi uurka leh ee daryeelka ama gargaarka degdega ah xanuunka awgiis u galay dhammaantood ay ahaayeen kuwo aan tallaalka ka hortaga qaadan. wararka kale ee ugu waaweyn ee ku saabsan umuuraha viruska corona ee caalamka waxaa ka mid ah in mar kale dalkaasi Australia xaaladiisa ku saabsan faafista viruska corona ay kor u sii socoto, iyadoo maantana la sheegay in tiro hor leh dalkaasi laga helay viruska corona oo ka badan kuwii maalmihii hore laga helay. waxaana mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi Australia ay ka digayaan in maalmaha soo socda tiradu ay cirka isku sii shareeri doonto. waxaa maanta laga helay dalkaasi Australia 279 qof, halkii maalintii shalay ahaydna tiradu ay ka ahayd 259. xilligan haatana in ka badan 60% dadweynaha reer Australia ayaa waxa ay ku nool yihiin ama u dhaxeeyaan 4 darbi ee guryahooda, iyadoo ay ku jiraan jidxir ama lockdown aad u weyn. waxaana magaalooyinka waaweyn dhammaantood la amray inaanay dadku soo bixi karin islamarkaana goobaha bannaanka ay isugu iman karin, iyadoo arrinkaasina ay waardiye ka hayaan bilayska iyo qaar ka mid ah ciidamada militariga. magaalooyinka kale Sydney, Melbourne iyo Brisbane ayaa ka mid ah goobaha la amray inaanay dadku soo bixi karin. dalkaasi Mareykanka wararka ka imanayana waxa ay shaaca ka qaadayaan in kanaalka telefishinka wararka caanka ah ee CNN la yiraahdo uu shaqadii ka eriyay 3 shaqaalihiisa ka mid ah, kuwaasi oo shaqada yimid iyagoo aan qaadan tallaalkii looga hortagayay viruska corona. kanaalka CNN ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in wixii hadda ka dambeeya uu ogolaan doono oo keliya inay ka shaqeeyaan gudaha kanaalkaasi iyo dhammaanba howlaha shaqada la xiriira shaqaalaha qaatay tallaalka oo keliya. umuurtaasi ayaa noqotay war aad u weyn oo maanta aad loogu faafiyay dalkaasi Mareykanka, waxaana ninka mas-uulka ka ah kanaalkaasi Jeff Zucker la yiraahdo uu sheegay in umuurtaasi ay tahay mid dhaba, islamarkaana cid kasta oo aan qaadan tallaalka shaqada laga eri doono oo loo ogolaanayo keliya inay shaqeeyaan dadka tallaalka qaatay. wararkii ku saabsanaa viruska corona oo dhegaystayaal aad kala socoteen codka Soomaalida Finland SSM Verkosto, intaa ayaan kusoo koobaynaa. tan iyo kulanteena dambe waa bahda SSM Verkosto idinla sidaasi iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.